كعدينا عبشة آدية آدوين iyadoo gurigii aan 42 sano ka hor degnay oo bakhaar ku yaala halkan masaajidka Nakhiil ee suuqa in awood iyo xoog bilays loo soo kaxaysanay mar walba nala galayo waxaanu aad iyo aad dawladda u sheegaynaa in hadii sharci iyo maxkamad iyo cadaalad jirto in cadaaladda ciddii nagula doodaysa ay tagto aan wada tagno hadii aan cadaalad la yeelayn meeshan mar walba la galaya cadaalad darrada lagu wado teaadar waa istillooma marka meeshta meydin baa yaala waxa weeye waa in hadii cadaalad iyo sharci jiro maxkamadda aan wada tagnaa waxay ku doodayaan iyo waxay haystaan anagu sharcigayagii iyo dadkii la ogaayay cid walba waan taaganahay heegan baan u nahay waxaan ogol lahay in hadday sharciga islaamka noqoto iyo hadday maxkamadda noqotaba in cadaalad aan isla tagno hadii cadaaladda aan laga yeelaynin mar walba la galayo hantida iyo gurigaba la galayo oo askar iyo bilaysu la soo kaxaysanay aan sharci maxkamadeedsan la leeyin madaxtooyada ayaa laga wata ma yeelayno mana ogolin waanu waxaanu ka dagaalamayno ogolaana mayno gurigayagaan ku dhex dhimanayna hadii lagu soo weeraro oo lagu yimaado waxa weeye hadii sifo sharci loo soo marna sharcigaan ogolay inta kalena waxa idin umada meesha fadhida ayaa cid walba idinka warrami doonta sifaha iyo sidii nidaamku wax walba yiin guriyahaas hantiga leh waxa weeyaan dib fara badan ayaa meesha naga soo gaadhay dibtaas waxay naga timid dawladda Soomaaliland bay naga timid madaxtooyada ka koowa warqad uu soo gooyay 8 sano ka hor ninka la yiraahdo Beergeel ayaa 10 goorna lagu galay oo magac ku oolin oo imika halkan lagu hayo waxa weeyaan annagu waxaan ka cabanaynaa arrinka waxa ku jira baa la yiri nin la yiraahdo Cali Balaqbalaq oo meesha shaqo ku lahayn iyo nin la yiraahdo Khaliil oo waqaafta ah meeshana gurayar baa la yiraahdaa 40kii bay 3 hawow bay maraysaa 40kii baan degnay annagu deemanaan jirin bay 40kii ayaa la degay waxa weeyaan 75 sano ayaan meesha degnay cidna weligeey isku maanaan qabsanin horena uma iman ragii lahaana way dhinteen ilaa kuwii aabada ahaa iyo kuwii ka dambeeyay way dhinteen meesha agooma jooga iyo dhalinyaro foolxuma ka taagan waxa weeyaan midna waxaan odhanayaa ninka Cali Balaqbalaq la yiraahdo saylada ka shaqaysan maysid haddaad guri reer leeyahay oo nada qoonin u soo duulimaa tagto mid kalena waxaan leeyahay marwada Aamina Waris Aamina Sheekh Maxamuud Soomaaliland oo dhan baad marwo u tahay marwo uma yihid inta gurigaaga joogtay la sheegayeen wali noo iman maxkamad baan ogolay ta diiniga baan ogolay ta dawladana ogolay shicibkaana ogolay iyo tolka inay noo gar qaadaan sharcigayagii baan haysanaa gurigayagaas imika wuxuu dhisnaa 8 sanadood buu dhisnaa sanadka maanta aan banay nimankaas noo yimaadeen ayuu gurigan u dhisnaa meeshuna intay banaanayd iyo intay buulasha ahaydna waa 75 sano 3 qarni bay maraysaa marka waxa weeyaan marwada waxaan ka codsanayaa gabadha kule guriga iga maqan 13 sano ka hor iyo dhaxalkoodii qaybsadeen 14 qof ku qaybsadeen waraaqina waa la hayaa wax guriga heshayna ma jiro waxay dhisatayna ma jiro waxay naga kireysay waxay shaqo nagu leedahay weligeeyna maanaan arag hana hor timaado siyaasaan ayaan doonaynaa aaminana waxaan leeyahay meel ka tuurina nabad dadkii kulmiyay inaan soo qaadaabay ahayd kaadhadkii horeeyay qaatay baan ahaay inaad maanta ay noqoto maalinka maanta ay noqoto adoontii hadhuudhka ridqay markii u dambeeyay ka kacdad lugta ku walaaqdo Soomaaliland kaaga ma fadhido haddaad marwo ahayd wadanka ka shaqaynaysay waxa loo baahan yahay inaad qof walba wax weydiiso laakiin aad la soo safato ma aha warqadaana ninka la yiraahdo Beergeel baa u soo jaray maalintuu soo jaray wuxuu soo igu yiri ninkaaso ina Beergeel cadaaladda ka shaqaynaya la leeyahay waa wadaado wuxuu joogaa maxkamad kolkaan oo imid wuxuu samaniyo ii wada keenay iyo fulinta magac male shahlay baa ku taal waanan haynaa soo saaray imaka wuxuu yiri ma kula tahay guri reerkaas leeyahay idin haysan doontaa geel nin xigaa dhiciyo biigu yiri aniguna hadda adiga qaada baan dadka cadiban baan 10 ka goorna dawladda Soomaaliland way nagashay imaka araariyo baan soo wadnaabay yidhaahdeen iska daa rago dumarka yaga ayaa meesha diyaar ku ah suuqa waahayna uu guban annaka qura maahay uu guban hadaad keento khaliil waxaan leeyahay sheekh yagii baa tahay
wasiirkii baa tahay oo wadaadkii baa tahay nabadgeli oo ka bax shaqadayada ka bax oo gabadhaanaan arag iyo dadkaanaan arag iyo madaxtooyada daa hoostiisa ugu jirto ka bax oo nadaa waxna lagu leeyahay ma jira waa xaqayagii wuu noo cad yahay sharcigayagii baanu haysanaa intaasoo ciroola oo fadhiyaana way noo cadaynayaan haddii la yidhaa 100 qof keena oo markhaatiya waanu keenaynaa inaanay waxba nagu lahayn hana nabadgeliyo isaguna ha ka baxo hana daayo wadaadkaas isagaa kolbale xoola keenoo gelaya meherada iyadoo bilayska ku tuntay namadii naba raqabaan maantana uu dhaaraariyo baan keenaya keen dhaaraariyo run haddaad doonayso dadkii kaaraa dhabarka u dhigay baanu nahay yal wadnaa haddaad keenaysa keen baanu leenahay marka hadday dawladdu naga qabanaysana ha naga qabato ninka hor kacaya ee la yidhaaho sheekh khaliil la yidhaaho waxaanu leenahay sheekh khaliilow sheekh baa lagu yaqaanaa sheekh baa tahay wasiirkii baa tahay hubsimo hal baa la siistaa haddii aad iska hubsan weydo arrintaa aad maanta ku socotana khasaare wax la yidhaaho oo dusha lagu saaraa iman doona waxaan kuu sheegayaa oo aan halkan ka cadaynaynaa khaliil sheekada uu ku soo galay arrintaasi inay tahay inuu guriga ku xiga uu isagu xidhay oo uu maxkamadda ku yidhi xayiraadii saar doodina kama furaa iyaga oo 3 ninoo isku adeeray ay leeyihiin kana uu isagu damaaciyay uu doonay inuu gurigana noqdo kii labaad ee u xidhnaayay isku dalooshan lahaa suurtagal ma noqonayso isaga tagay madaxtooyada markhaatiga isaga furay isaga yidhi aniga garanaya qayra jaamac baa le kiraystay reer qaadacga yaraale aan idhaahe sida darteed aniga markhaatiga u furaya amina waris waxay uga fadhiisatay khaliil bay uga fadhiisatay oo ku sugtay inuu arrinta wax ka galo guddi baan u dirayaa buu yiri guddi isagu ku jiro oo uu ku jiraan gabadha familygooda ku jiro buu fadhiisiyay iyagana lagama saxiixin reerkana cid loogama yeelo lagama saxiixin waxay noqotay markaa inuu yidhaaho sheekh khaliil aniga arrinta dusha ku qaado dhameynaya markuu soo dhameeyay yiri ana arrinta soo dhameynay wuxuu $7,000 miiska saaran ba furi keena taasina sharci ma aha diinta islaamkana kuma jirto maadaama nin sheekh tahay sheekhnimada iyo diinta dib ugu noqon meel kaga dhicin waxaan leeyahay amina warisna waad kala cadeyn doontaa inaad inta madaxtooyada kugu timaado kaliya madaxweynaha u tahay iyo oo kolba ku caawinayso ciidamada RRU-da iyo inaad Soomaaliland aad u tahay jiriyo insiba Soomaaliland oo dhan ma xoolaha joogaad u tahay madaxtooyada aad u fadhidaayad u joogtaa ma aha oo kaliya inaad tiraahdo islaan kaliya meesha u fadhiya annagu haddaan xumaan doonayno bari hore gacanka ka shaqeynay laakiin dadaal waxaanu sameeynaa nabadgelyada sidii nololo soo hor fadhiisan lahaa sharcigayagii baan haysanaa cadeyntayadii baan haysanaa markhaatiyaashii baan haysanaa inta midna ma haysato khaliil wuxuu noo sheegay inaan la qabtay madax la qabtay leeyahay daba la qabta male waxaanu leenahay dadka meesha ka hadlayay ee hadalkiisa maqlayseen annaku waxaanu dee ognay horta intay meesha deganaayeen un baanu garanaynaa 7 baan jiray buura oo wallahi aan ma caawa taaganay anigu waan ugu garaadaystay wallahi waan ugu garaadaystay geelo aanu hawd ka soo aroorina markuu ceelka dharaan qabanayo ayaa makhaayadana lagaga reebi jiro la oran jiray caruurtu geela ceelka dhanaan qabanaya hasiina soto intuu ceelka ku maqanyado makhaayada iyo meelo yaryaroo ku dhadhow ayaana lagaga sii tagi jiro markaas la oran jiray caruurtu halkan geelaha ku sii sugto ilaahay baa sidaa nagaga sarreeyo waanu u kusoognay waxaan dawladu istaba marinayaan ee maxkamada iyo waxaan u geli maayo kana hadli maayo dadkii lahaayee imaka halkan hadalkiisa ku maqlayseen dadkii horta meesha lahaa waxba kama noola hargeysa oo dhan baa garanaysa hargeysa oo dhan ayaa garanaysa makhaayada inta nin walaalaa iskaga dambeysay ee ninba nin kaga dambeeyey hargeysa oo dhan baa garanaysa oo waa la wada garanaya wixii hargeysa ahaa waxaan imaka hadlaya ee halkan jooga waa wixii ay dadkaasi ka tageen ee meesha intii ay haysteen ay ku dhaleen waxaanu leenahay qofka wax iska taawiyey ee doonaya inuu dee maanta haddii la yidhaaho waxa la yidhi go'aaga haddii lagugu qabsado waa laga garbaxaaye hadday yidhaahaan garbixi mayno annaka odayaala dawlad baa jirto maxkamad baa jirta sharci diiniya baa jira waa dhankii arrimaha looga ilaahay kama dhigin cidhiidhiya dhankii arrinta looga wareegaaba waxa weeyaan waa dhan wanaagsan
maalin horena dirqi baa lagu kala baxsaday maalintaa dirqi baa ilaahayii asaawo jallaaha waa dirqi baa lagu kala baxsaday askartii meesha la soo geliyey iyo dadkii meesha joogay waxaanu leenahay maantana falkii iyo fal la mida ayaa la maleegayaa baana lagu yidhi waa la maleegayaa dabeed ayagoo kacsan baanuu nimid annaku waannu maxaa idin helaannu nidhi warkaa ay halkaa ka yidhaaheen iyo mid ka sii daranunbay annaka noogu warrameen annakina dee meelannu fadhina garan mayno waxaannu leenahay maxkamadda sharciga dawladdu iyo sharciga diiniga iyo odayaasha xigtada ah intaba arrintaa ha loo guntado waxa laga qabto intii hadhowto la odhan lahaa arrintaa qolaa qarsatay la odhan lahaa waxa laga qabto waxaan leedahay yaan la isdhegamarannin mid xaggan ku jiro oo maanta dhuhdhuhlahoo nabiibiyo ah iyo mid xaggaa ka soo jeeda ah iyo anigu dadka magacooda waxba ku dheeraan maayo laakiin nin markuu khasaara dhaco bannaanka u boodi doono ee odhan doona anigu kumaan jirin anigu maan amrin anigu sidan maan odhan war iminka dadka isku logoynine sidaa wanaagsan ay carabkooda ka maqlaysaan dadka ha loo kala saaro amba odayaal xigto amba waxaan halkan ka caddaynayaa halkan ka sheegayaa magacayga bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay xamse cabdulaahi jaamac kana mid aha reer kale gurigan muddo 70 sano ilaa 75 sano ku siman waxaan aad iyo aad uga xunnahay dulmiga iyo xaqdarrada iyo waxa isku soo bahaysteen marwada madaxweynaha iyo wasiirka diinta awqaafta Sheekh Khaliil oo doonaya inay xoog iyo xaqdarro ku qaataan gurigan intaasoo muddo sanaan deganayn waxaan kaloo sheegayaa inaan anagu aanan ka ogolaanin dulmiga ay wadaan mar haddii cadaaladii diideen waxaan bartan ka cadaynayaa inaanu ku dhiman doono inaanu dhacsan doono inaanu isdifaaci doono mar haddii wanaagii la diiday oo maxkamaddii la diido sharcigii la diiday la soo tago dee gacan baa lagu kala baxaya haddii gacan lagu kala baxo dee ninkii roonunbaa reerka u hadhaya waxaan u sheegayaa wasiirka diinta awqaafta Sheekh Khaliil iyo marwada madaxweynaha ee waxa kale soo daba socdaba in meesha haddii sharci lagu kala bixi waayo in sharci darro la isla tegi doono oo gacan la isku adeegsan doono wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh tii ugu horeysay ahayn oona tii labaad tii saddexaad midna ahayn oo 5 goor wax ka badan la hubo waxaan aad uga xunnahay in wasiir Khaliil oo wasiirkii kaliyaatay xaafadan ilhayd ah haddii uu garan waayay in wax u qabto umadiyan haddii uu garan waayay in wax u qabto waxaan aad uga xunnahay in waxay haysteen 7 sano wax ka badan intaas oo odayaal cadeynayaan inuu ku qabsado waxaan leenahay marwada madaxweynaha Soomaaliland ee Aamina Waris waxaan marwo u tahay qaranka Soomaaliland oo dhan dad iyo xoolaba laakiin umatihid Khaliil oo kaliyaata marwo umatihid dadkani waa dadkii ku doortay dadkii kugu dhoowayaan haddaan maanta soo raacday Khaliil waa wax runtii laga xumaado weeyaan waxaanu mar koowaad iyo mar labaad madaxweynaha Soomaaliland u sheegaynaa in wasiir Khaliil ka qabto boobka cad ee hantida ummadda ku hayo iyo sida foosha xun ee dadka ula dhaqmayo waxaasoo dadaana ka marxaatiya aad iyo aad baan uga xunnahay mar koowaad iyo mar labaad waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland in arrinkaas si degdeg ah wax uga qabtaan ka baryaba lagu soo weerarayay dumarka iyo carruurta iyo agoomaha dadweynihii kale ee la dhashayna gacan bira lagu hayo ee odayaasha ku hayaan annagu waxaanu nahay odayaashii reeraha haddii waxaannu jecel lahay ma diidanin maxkamad iyo sharci dawladeed midna ma diidanin laakiin waxaannu diidannahay annu aad iyo aad uga xunnahay oo aanaan ka gamayno annu aad iyo aad uga xunnay waagii cinda allaahu ka baryaba weerar la soo weerarayo carruurtii iyo dumarkii annagana gacmahuna lagu hayo na la xijinayo haddii wax laga qaban waayo dee annaguna markaa waxba la hadhi mayno wixii awoodayada haddii wax laga qaban waayo waxba la hadhi mayno badin maayo wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahi raxmaan aliisa waxa weeyaan dadkii meesha lahaa baanu nahay intaasoo qofina way caddaysay waxa weeyaan waagii baryaa baanagu dulmi iyo xaqda waxaanaan maxay ahayd awoodu lahayn oo nalagu hayo kuma gelayno waxa weeyaan wadaadku gabadhu madaxa ku sito waagii bari oo ku marxaati furayuu leeyahay maxay ahayd meesha anaa kuu haya waxna maxay kaaga qaadaya yaa isaga ayaa dabada ka wada kolla shaarka Aamina Waris xidhan kolla shaarka maxay dawladda xidhan anaga labada madaxa diina la gooy labada gacmood wayna shaqaynayaan cidna uga tagi mayno cidna ka haybaysan mayno
aamina warisna waa marwadi dalka waa tirdhaxaadkii cayna nagama mudna aflagaadana nagama mudna laakiin waxa weeyaan shaarkeedu waagii bariwasa dhulku jiijiidayo yaa hayse soo cadayso hadaari ku jirin barxa iska soo dhigto haday wax nagu leedahayna hana hor timaado ayaan leeyahay in takalena qaad cageerana isaa waxay ku waagii bariwasa ku hoostaaganna yaa de waxa weeyaan qof wax Soomaalidu ku maamada xoolna urta isku gartaa dadkuna in af Soomaaligu isku gartaa hana hor timaado haday wax nagu leedahay daw bixiyaan unay hana hor timaado waagu nooga bariin hana hor timaado wadaadkana waxa weeye adduunweyna waxa dab ka kacaya taasoo midhal bay ka bilaabmeen adduunweyna waxa qarxaya saa u laba dhacay taa damaacigaas kolbay ka bilaabmeen ta kursi wasaaradna lagu fadhiyo madaxweyne